marka laga yimaado gantaalada ridada dheer ee weli aysan si buuxda u adeegsan Iiraan, haddana waxaa jirta awood kale oo halis ah oo dagaalka jihadiisa si buuxda u bedeli karta. waa xiridda marinka Hormuz. Iiraan ayaa dhowr jeer oo hore si cad ugu hanjabtay inay tallaabadan qaadi karto haddii cadaadis military ama mid dhaqaale ay la kulanto. haddii ay dhacdo in Iiraan ay xirto marinka Hormuz, waxay noqon doontaa dhacdo gilgisha dhaqaalaha caalamka. sababtu waa in marinkan uu yahay halbowlaha ugu weyn ee dhoofinta saliidda dunida. qiimaha gaaska iyo saliidda ayaa si lama filaan ah cirka isugu shareeri doona. suuqyada caalamkana waxaa ku dhici doona jahwareer. dalalka reer galbeedka, gaar ahaan kuwa saliidda ku tiirsan, ayaa wajihi doona shidaalyari ba'an, taasi oo si toos ah u saamayn doonta wax soo saarka warshadaha, gaadiidka iyo qiimaha maciishadda guud ahaan. sanadkan gudihiis, Iiraan ayaa qabatay dhoolatus ciidan, iyadoo si xeeladaysan u muujisay awoodda ay u leedahay inay xannibi karto maraakiibta shidaalka ee maraya marinkan. dhoolatuskan ayaa ahaa fariin cad oo ku socota Maraykanka iyo reer galbeedka, micnaheeduna ahaa in Iiraan aysan keliya ku gaashaanayn gantaallo, balse ay leedahay awoodo kale oo istiraatiiji ah. si aad u fahanto muhiimadda marinka Hormuz, waxaa kugu filan inaad ogaatid in celcelis ahaan 20% shidaalka adduunka uu maro marinkan maalin kasta, ama haddii aynu si kale u dhahno 17 milyan oo foosto oo saliid ah ayaa si maalinle ah isaga kala goosha marinka Hormuz.